الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس كمية الدروس تاني تحناها إذا كصاب سنايد الرماها يتعيدت كمسلمين تاهي إني كبرتان بشهر رمضان iyo waxyaaba ay tahay inay si xeel dheer ay uga fahmaan si bisha Ramadaan iyo cibaadaadkeedu ay u noqdaan kuwo raad iyo saameyn fiican kaga taga qofka muslimka ah ee bishan Ilaahay uga dhigay fursad uu nolol ku soo gaaray iyo islaamnimo. casharkeena wuxuu ku saabsan yahay Ramadaan wal azimatu saadiqa. Ramadaan iyo go'aanka runta ah. waxaa ka muuqda bisha Ramadaan iyo cibaadaadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waajibiyey qaarna Rabbi uu sunno ka dhigay in la barayo dadka muslimiinta ah inay go'aan fiican u yeeshaan waxyaabaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay ee adduunyadoodana raad fiican kaga tegaya aakhirana sahay fiican u noqonaya yawma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin. maalinta dadku Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay hor istaagayaan, xaaladuna ay adag tahay, baahiduna ay aada u badan tahay. waynu ognahay soomka maalmaha Ramadaan la soomaa waa maalmo tirsan 1 ilaa 29 ama 1 ilaa 30. waa waqti marka sanadkii loo qaybiyo 12 meelood meel ka mid ah ayaa qofka muslimka ahi uu soomaya. xagga saacadaha markaynu eegnana waa saacado kala duwan, laakiin saacado yar maaha oo inta badan 12 saacadood ayay dadku soomaan. iyadoo ay xaaladdu saasi tahay, naftana aynu ogsoonahay inay jeceshahay in loo fuliyo muraadkeeda iyo baahiyaheeda, ay naftana ka qaalib tahay oo xaaladeedu ay u badan tahay waxa ay jeceshahay ay doonayso inaanay ka sabrin, waxyaabaha culayska iyo dhibaatada kuwaana inaanay u adkaysan, oo sifada nafta asalka ay tahay. haddana qofka muslimka wuxuu naftiisii kaga adkaaday oo saacadaha badan uu soomanaanaya, isla markaana habeenkiina uu salaatuleyl u tukanayaa in badan oo qur'aan ah oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyena u akhrinayaa, dikriga sidii hore uu uga badinayaa, sidaasoo kale ducada iyo allabariga iyo cibaadaadka kale ee la halmaalay kuwaasi ay tusaalayaasha u yihiin. waxay arrintaasi ku timi marka laga yimaado Ilaahay subxaanahu wa tacaala hanuunintiisa iyo waafajintiisa oo ta asalka ah, oo haddaanu addoonka Ilaahay waafajin lahayn go-aanna uma yeesheen, awoodu ku sameeyana uma yeesheen. laakiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha hanuunka uu ku bixiyo waxaa ka mid ah asbaab u noqda addoonka inuu waafajiyo waxaa dantiisa adduun iyo aakhiraba addoonku inuu la yimaado go-aan fiican. ramadaanna markaad sidaa dusha uga eegto iyo cibaadaadka addoonka muslimka uu sameynayo, waxaa ka muuqata in dadka la barayo sifada la yidhaahdo alcazimatu saadiqa. cazimadu waa go-aanka, waa qofku waxa uu sameynayo ama uu ka tegayo in doonistiisa oo dhan uu isugu geeyo, oo wax doonistiisa ka mid aanu meel kale aanu u marin, ama doonistii shaygaa uu doonayey aanay mid kala dhiman aanay u noqon. marka hamiga laga yimaado qofku wixii inuu ku hamiyo, cazimadu waa mabda alcamal, waa halka camalka iyo shaqada iyo hawshu ay ka bilaabanto. haddii cazime iyo go-aan la waayana waxay noqonaysaa qofku camalkii inaanu bilaabin. haddii cazimada iyo go-aanka uu ku bilaabay ay tahay mid daciifana, waxaa arrinta noocaasa ka dhalanaysa inuu camalkii addoonku dhammaystiri waayo oo dhexda waxa weeyaan uu kaga hadho. walmuslimu muxtaajun ila alcazimati fi jamiici umuurihi wa xayaatihi. qofka muslimkaahina inuu noqdo qof waxa weeyaan go-aan leh oo go-aan fiican gaadhaya, oo go-aan ku gaadhaya fulinta farallada Ilaahay saaray iyo ka sahay qaadashadii ka qaniimaysidka cibaadaadka Ilaahay u sharciyeeyey ee sunnaha ah, go-aan ku gaadhaya
inuu ka tago xumaanta iyo macaasida naftiisu ay jeclaysanayso oo nafta uu ka jaro isagoo arrintaa u sameynaya ilaahay subxana watacaala daraaddii inuu noqdo mid go-aan ku gaadhaya inuu xaaladiisa bedelo oo intuu naftiisa xisaabiyo waxa ka khaldane ka xun oo dhan uu bedelaa arrinta noocaasi ahi waa arrin qofka muslimka ah ilaahay subxana watacaala uu ku dhiirigeliyey oo casiimada qur-aanka waa lagu sheegay iyo go-aanka fiican faidaa cazamta fatawakal cala allah oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxa uu ku tilmaamay sifada casiimada inuu leeyahay iyo go-aanka waxaa loo sheegay oo loo raaciyey uun inaan go-aankiisa oo qura inaanu qofku ku meel mari karin ay tahay go-aanka fiican inuu gaadho laakiin markuu go-aanka fiican gaadho awoodda bani aadamku way xadidan tahay xeeladihiisuna way urursan yihiine waa inuu ilaahay subxaana watacaala cuskado rabbina subxaana watacaala u kaalmo weydiisto ilaahay qur-aankiisa rususha qaarkood ayuu si gaara ugu ammaanay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam uu uga dhigay tusaalayaal uu ku daydo rususha ilaahay wuxuu ku sifeeyey alcasm fasbir kamaa sabara ululcasmi min arusul u sabir see u sabreen kuwii go-aanka u lahaa khayrka iyo adkaysiga iyo sabirka ee rususha ilaahay subxana watacaala ka mid ahaa casiimadii qofku inuu khayrkii wanaagga go-aan u lahaadaa waa furaha khayrka waana caawiyaha joogtaynta khayrka iyo wanaagga walihaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu weydiisan jiray laba arrimood waas'aluka athabaata fi lamr walcazimata cala rushd wixii khayr iyo wanaag ilaahay uu waafajiyo inuu go-aankiisa qaato isla markaana uu sameeyo uu ku dhaqaaqo inuu ilaahay ku sugo islaamnimada iyo towxiidka iimaanka kudayashada rasuulka calayhi salaatu wasalaam fulinta farallada ilaahay iyo ka tegista wuxuu ilaahay diiday iyo qofku inuu u noolaado sida ilaahay subxana watacaala uu ka doonayo in uu ilaahay ku sugo arrinka labaadna waa alcazimatu cala rushd waa hanuunka iyo wadada toosan fii jamiici alumuur arrimaha oo dhan mid go-aan u leh ilaahay subxana watacaala inuu ka dhigo taasi markaa waxay muujinaysaa kaalinta casiimada iyo go-aanka fiicani uu qofka muslimkaa kaga jiro diintiisa iyo camalkiisa iyo habdhaqankiisa intaba wuxuu ina amray rasuulku calayhi salatu salaam inaan la nimaadno xirs dadaal in la nimaadno dadaalkuna go-aan fiican ayuu ka bilaabmaa oo go-aan la-aan dadaal ma jiro wuxuu uhi rasuulku sida muslim ku wariyey saxiixa can abi hurayra ixris calaa maa yanfacuka wastacin billah wixii waxtar kuule ku dadaal oo dadaalkuna ka bilaabma inaad go-aan fiican ku qaadato samaynta waxa ku anfacaya adduun iyo aakhiro iyo ka tegista waxa ku dhibaya adduun iyo aakhiro ee khasaaraha sabab kugu noqonaya laakiin dadaalkaaga iyo go-aankaaga xooggaaga iyo xeeladahaaga ha isku hadlayn wastacin billaah ilaahay subxana watacaala kaalmo weydiiso bisha ramadaan sifadaa wanaagsan xataa marka laga yimaado inay ka turjumayso qofka iimaankiisa iyo quwatu tacaluqi qalbihi billah inuu qalbigiisu si xoog badan ilaahay ugu xidhan yahay waa sifo ka turjumaysa qofka shakhsiyadiisu inay tahay shakhsiya qawiya shakhsiyad xagga qalbiga iyo go-aanka xoog badan oo muuminkii qawiga ahaa ee rasuulku calayhi salatu wasalaam uu sheegayay qofku inuu yahay waa sifo tilmaamaysa sifada noocaasa ayaa ramadaan iyo cibaadaadkeeda laynagu barayaa arrintaa natiijadeeda iyo midhaha aynu ka goosanayna waa inay noqoto inaynu ilaahay ka barino subxaana watacaala inuu inaga dhigo kuwa go-aan u leh samaynta khayrka iyo wanaagga iyo waxa ilaahay jecelaya ilaahay raalli gelinaya ee janno lagu gelayo ilaahay naartiisa iyo cadhadiisana lagaga badbaadayo mar labaadkana go-aanka noocaasa waa inaynu ka dhigno sifo ay nafteennu ay leedahay iyo habdhaqan waxa weeyaan joogto inoo ah ramadaan dhexdeedana waa in ama intaanay sooba gelin iyo bilowgeeda iyo dhexdeedaba qofka muslimka ahi waa inuu gaadho go-aamo fiican isagoo ilaahayna ka baryaya inuu fulintooda ku kaalmeeyo go-aamadaasoo ay ka mid tahay in farallada ilaahay wax ka mid aanay ka dayacmin soom iyo salaad iyo waajibaad iyo xuquuq kalaba
in naftiisa uu xisaabiyo deetana go-aan ku gaadho wax allaale wixii ilaahay u diiday ilaahay aan raali gelinayno ee ka mida dhaqankiisa iyo ficilkiisa inuu noloshiisa ka sifeeyo inuu go-aan ku gaadho ilaahay subxana wa tacaala raaligelintiisa iyo ka tegista wax kastoo ilaahay ka cadhaysiinaya inuu go-aan ku gaadho cibaadaadka inuu ku dadaalo bisha ramadaan iyo ramadaan dabadeedba inuu go-aan ku gaadho in haddii ramadaan xaalkiisu wanaagsanaaday xaalkiisu ramadaan dabadeedna saasoo kale u ahaado iyo kasii fiican oo go-aan ku gaadho inuu xaaladiisa bedelo qofka muslimkaahina inuu naftiisa isu dhiibo oo u hogaansamo oo balwadaha iyo naftu waxay doonaysaa xumi uu ka qaalib noqdo oo ka adkaado ma aha waa inuu go-aan ku gaadho inuu ka tago wax kasta oon ilaahay raali gelinayn oo balwaduhu ay ka mid yihiin ilaahayna waa inuu tala saarto kaalmo u weydiisto biidni illaahi tacaala ilaahay kaalmadiisana wuu heli doonaa go-aankaa fiican midhihiisuna noloshiisay ka muuqan doonaan nas'al allaha subxana wa tacaala athabaata fi lamr walcaziimata cala arushd وأن يعيننا على ذلك والله أعلم صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته